السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا maanta waxaan rabnaa inaan isla eegno dahabka fursadaha ku jira iyo fursadda hadda aan qaadanay lafteeda waxaan ku qaadanay iyo siday noqon kartaba future-ka dahabka. Intaana bilaabin ka hor waxaan filayaa horta dahabka meeshan hadda aan qaadanay fursaddan aan qaadanay hadda waxaan qaadanay almost 1797 oo meelaha ku beegnaanaysa. Marka TB-ga waan u fogeeyey waxaan ka dhigay ilaa iyo 1735 taana waan qabaayo sababtana aan aadka u fogeeyey weliba difaacaad bips aad badan weeyaan taqriiban marka la eegana 500 oo bib noqonaysa. waxaan aad ugu fogeeyey qofku inuu ama 600 oo bib ku dhawaanaysa waa cadiraynaa inuu ardaygu ka faa'iidaysto intaasoo bib hadduu rabo tiriirka hal kaamar ha haysto oo sidaa ku sii daysto ama dhowr jeer oo kala duwan ha galo waa loo fududeeyey. marka waxaan rabnaa horta inaan eegno trade area-ha. trade area-hana bishan Augusto ama sawiradii aan sawirana bishan Augusto 08 waxaan filayaa waan ka hadlay halkana mayman laakiin almost 60 bib buu na siiyey kadib uu jebiyey halkan buu ka sii socday kadib meelahana ka galnay bay shalayto. tan u socda marka waxaa weeye waa tan mustaqbalka aan ku dul furay. okay kan haddaba waxaan filayaa inaad bayna uga faa'iidaysteen shalayto intan selna uga faa'iidaysateen labadaba ina uga faa'iidaysateen laakiin trade area-han meeshuu ka dhaqaaqi doono aan qabo inuu ka dhaqaaqi doono waa halkan oo 35ka ah taqriiban ku beegan inuu bayga long bayga halkan ka bilaabi doono waana macquul inuu meesha hadda uu joogaba kasii bilowdo laakiin hadba meeshii annaga aan fursad ka heli karayno aan qaadanayna laakiin fursaddan waa long buy dahabka waana wax iska waadixo la wada ogyahay. hagaag ilaa iyo isbuucii horeba waxaan aaminsanaa in bayga dheer uu ka bilaaban doono 1737 marka haddii uu baygu halka ka bilaaban waayo halkan hadduu ka bilaaban waayo in gidaarka markaa resistance levelka la jabiyo markaas official buu noqonayaa levelka weyn haddii la jabiyo markaas official buu noqonayaa. markaas wuxuu official noqonayaa markaas wuxuu official noqonayaa buy. marka halkan inaan ka helno fursaddan bayga ama inaan halkan ku sugno inuu banaanka ku sugno labadaasba waana fursad aad u fiican oo almost ay ku jiri karayso bibs aad u fara badan oo future-ka aad u weyn xaqiiqatan. markaan eegno inta bib ay tahay dailiga aan tagno intan in la eg in la socdo baan doonaynaa intan in la eg in la socdo oo waxaan doonaynaa. marka haddii labadanba ay toos u jabaan waxay u badan tahay in intan in la egba ay abuurmi karayso. marka inta bib ay tahay aan aragno almost waa 2550 bib ma yara qofkii markaa hal mar qaadan iyo qofkii wada qaadanayaba waa fursad aad u weyn weeyaan. okay marka bal aan monthly-ga tagno si aan u eegno dahabka.
okay marka hadda inta aan rajaynayna waxay tahay inuu dahabku xoogaa momentum yar oo lowa sameeyo kadib haygan uu jabiyo marka meesha la jabinayana waa monthly gidaar ah oo halkan leh marka intan haddii marba ay jabto kale waa fursad mar walba indhaha aan ku haynayno oo aad u fiican weeyaan monthlyga waxaa arkaynaa in rejectionkan hoose aan dib loogu noqonin suuquna uu gaari meeshiisa ugu hooseysay marka possible miya inuu mar labaad halka yimaado waxaan suuqan possible ahayn ma jirto laakiin sidaan arkayno hadda dhow ama fursadda dhow hadda aan arkayno ayaa waxay tahay mid biaska ama probabilityga buyga ay aad u badan tahay hadda taan arkayno yani waxaan ka hadlaynaa coming months iyo bilaha soo socda iyo isbuucyada soo socda baan ka hadlaynaa okay waxaan filayaa dahabka hadda already waba socdaaba kaadi qolka inoo geeyo inta bib u dhaqaaqa aan xisaabin waan ka aragno pips fadlan intaas stoploss entry markay dhamay waan haynaynaa waxaa mar labaad inuu soo noqdo baa macquul 46 bib waxaa maaha marka halka ay marayso weekliga aan joogno inagu soo celi weekligeennii marka isbuucan annagu waxaan rabnaa meel fiican uu dahabku ka dhaqaaqi karayo in aragno horta shalat waxaan filayaa markii anigaan fursaddan bayg idin siiyey dheer oo 200 bib taqriiban dhaqaaqday inta in la eg bay soo noqotay oo dib ugu soo noqotay oo sell ah waxaan filayaa inaan maalinta isku dambaysayba aan sheegay gidaarka laftiisa markii rejection uu kala kulmo in la soo celin karayo marka meesha ugu dhow aan isdhihi karayno dib buu ku soo noqon karaya waa 48 waa haddii mataqaanaa uu momentumka ama awooddu ee aad u awood badan tahay in xoogaa hoos inta u dhacdo asa week kadibna meelahan ku xilmato annaga awooddeena ugu weyn waxaa weeye inaan halkan ka qaadano fursadda bayga ah halkan anaan ka qaadano ama inaan halkan ka qaadano fair keliya inay tahay taas dailyga markaan joogno suuqan waxaan filayaa inay u dhammaatay ama dhammaatayba dhaqaaqiisii dailyga dhaqaaqiisii yani trainkan dhaqaaqiisii inay dhammaatay waana se u badan tahay halkan laftigeeda waxyaalahan hadda fursaddan seelkan u qaatay baa waxay ka mid tahay xalaytaba aan u qaadanayba waxay ka mid tahay halkan markii fibonacci-gaaga cabiratid fibonacci-gaaga markaa cabiratid toos buu wuxuu ugu dhacayaa rejectionkan shalay candlekan aan idin siiyey waa 0.618 rejection area marka intaasoo kale in la socdo oo halkanna in baarsi ay noqoto lugtan ay dhammaystiranto waa macaamid meesha ku jirta oo gidaaradan ba la wada jabiyo oo hoos loo daato laakiin probabilitygaas aad buu ugu yaryahay laakiin waa macquul sababta haddaan sel u qaadanay saakan idin siiyey xalaytana markaan suuqa filaqaysanayay aan u ogaanay baweyaan okay fibonacci ku soo qaba mar labaad intaasoo kale inay socoto macquul ilaa iyo 15 buu soo sheegaya laakiin way adag tahay taas waa adag tahay
inoo muuqato taas hadda fursaddan levelkan kore ee la jabiyo baa inoo dhow okay levelkan dheer la jabiyo unbaa inoogu dhow kan waa faceka koowaad dhaqaaqa kan waa faceka labaad dhaqaaqa kan waa faceka saddexaad dhaqaaqa waa sababta aan dhahayo saddex dhaqaaq oo siman yani kan waxaa la yihahdaa meeshuu faceka ka bilowdo dhaqaaqa kan waa meesha momentumka inta badan lugta ugu dheera dhaqaaqa kanna waa faceka ugu dambeeya dhaqaaqa marka in halkan laloo jabiyo waa tani ugu dhowdahay marka annaga waxaa rabnaa maadaama markii u horeysay uu taabtay levelkaas uu taabtay oo dib loogu soo celiyey waxaan rabnaa inuu meesha inoo yimaado at least halkaa markuu yimaado inay inoo jabto gidaarkan halkanna ay tahay meesha keliya aan rajeynaya ka dhaqaaqi karayo ama awoodda momentumka bay kusoo qaadan karayo marka labada meeloodba waa laba meelood oo aan isha ku haynayno inoo sawiro intanba waxaa laga yaabaa inay isbuuciyo ama bilba noqotaba marka waa iska waardiyeysayna waxay tahayba midaan la soconayno ilaa 5 inay noqonaysaa hagaag 4 hourkiina keen haddaba 4 hourka aan dabaqadahan u kala qaadano ilaa iyo intan haddaba sideeba uga faa'iidaysan karnaa su-aasha waa taas weeyaan maadaama hadda intaan kasoo sheekaysanayba ay yihiin waqtiyo waaweyn haddaba ilaa intan ardayga babibis fara badan imis u ka faa'iidaysan karaya waxaan filayaa oo aan rajeynayaa markaan fursaddan bayga idiin siiyey anigu wixii intaa ka dambeeyey mashquul baa noqday almost 200 bib baa qaadateen halkanna inaad seelka soo qaadateen maxaa yeelay maalinta isku ay dambeysay waxaa yeelay markuu halkan taabto halkan naga soo qaata seel at the same time fursadda seelkan aad ba usii fiicneed oo 250 bib ayaa hoos usii dhacday waana wax la rajeynayay mar walbo level uu yimaado tusaale ahaan oo kale markii kubad yaroo tan tenniska oo kale markii lagu dhufto gidaar maxay samaysaa waa soo noqotaa marka soo noqoshadaas markii lagu dhufanayo soo noqoshada inta badan ka awood badataa sida caadiga normalka ah marka tan soo noqoshadeedii bay ahayd waxaan filayaa taasna inaad maalintii aadan ilaawin oo aad fursadda qaadateen haddaba 4 hourkan haddaan eegno 4 hourkan horta dhowr qayboodba wuu inoo noqonayaa kan koowaad waxaa weeye horta in halkan laga soo celiyey oo halkan lagu noqday in halkan markii levelka yarka laga hadlo kan weynaan ahayn in at the same time lagu soo noqday oo hoosna loo sii wado meesha keliya oo aan rabno inuu gaari karayo aan rajeynayno markaas waxaa weeye inuu jabiyo keen levelkan sidoo kale inuu jabiyo
markuu halkaa jabiyana inuu halkaa yimaado wixii intaa ka dambeeyana uu targetkeenii hoose uu sii gaaro haddaba maxaa sideeba haddaba idinka ugu faa'iidaysan karaysaan tomorrow ama waqti aniga baan qadka ku jirin sidee uga faa'iidaysan karaysaan hadda kan waan qaadanay halkan aan ka qaadanay waxaa laga yaabaa kan hadda waan ka qaadanay waxaa laga yaabaa inay arday badan aysan qaadan ama ay haleelin halkan unbaa ku sugaysaa simple as that halkaas isku sugaysaa hadduu halkan kugu dhaafo halkan ku sugo yani interiyada ay ku siinayo ee selka ah ee muddooyinkan buu ku siinayo ilaa iyo isu ku tago hoos meeshaan calaamasanay mid aad u badan weeyaan aad iyo aad bay u badan tahay mid aad iyo aad u badan weey si fiican buu soo qaadatay masha allah waxbana warkeeda gee almost 63%, 63 pips running. Good. Marka okay ilaa halkaas 1783 oo kale waa uu soo gaaraya marka tomorrow ka laga yaabo inuu jabiyo ama uu soo jabin badee uu ku noqdo dib u noqdo meelahan oo kale ku noqdo inuu meelahan oo kale momentum kale ka soo qaato halkan ku noqdo kadib uu soo jabiyo kadib halkan yimaado kadib uu sidaa usii daato waa garateen sooma inuu sidaa sameeyo marka waa ka faa'iidaysan kartaan fursadda okay haddaba jiji baan arkaynaa jiji waxaan filayaa inaynu iska dambeysay muddo ah maalinta dhaweeda inaga saartay dib dambe uma noqon laakiin waxay nooga saartay waxay ahayd dabcan stowloskeenu very tight ahaa laakiin waxaan rajaynaynaa mar walba inay soo jabsan doonto levelkan hoose isla maalintaas buu isku dayday inay soo jabsato laakiin dib bay u noqotay kadib way naga saartay wixii intaa ka dambeeyeyna jj time maanan gelin laakiin very targetkeena sida u tagto waxaa laga yaabaa ardaygii xiisadihiina soo xaadiriyey ama xataa fideoyadana daawanayay inuu isla areadan uu ka sardareeyay adinka ka sardareysaa ma filaya sawirkan ayaan tusayaa jj zero eight okay 30 minutes stowloskeena meelahan aan dhiganay aan filayaa suga haddaba
ستوبس كنا ما نحن أنا في السوق بالأكثر. نيو هذا واحد أخذ أنا فليا النمبرز كان يخليه shit I hope إنه سام TP صبر سؤال يعني أنا بتريك ما قادني وأمسنا لكن stop سؤال ما قادني لكن نمبر كم بان دبو أغي جي ماشي انتري معها حفلة ما أنت ما حمسنا ما أنت حمسنا به حنون قوة بعض لا أحمانا وصية ماشي انتري معها 168 وهالكم هيد هو هنكدي جاي نو 168 وانتري معها بحكم هيد وصح أنا يستبلس كأنه هو 16329 يعني 163 هو ماشي نوري تي بي أنا وضوها 16121 حتى بابو حفلية أن تبو إنه أن تريد كمان قاعد ما حمسنا إني كان السيء كان لكم بهم في هذا سوق أوكي كم وايست وات إنترفيني ستوبرس كينو مع 926 سمعت لما قارين با ولا لو قارين لكن وقتي وقعتها بدنا معلومي قدام بيسوي صوت يعني أوكي تارجت كده ما قارين مكاتبة يس تارجت كيني أفكار لو صار فالتريد كان عدة إلى قاعتي وما هي صورت تريكا ما تريكان لهاي almost لaba boqol oo bib baa ku jira marka haddii aan system aggressive u galayno waxay ahayd ama degdeg aggressive aan galayno halkan aan ka galnay ahayd haddii conservative aan dhaanana in halkan ka galnay ahayd okay aggressive kaas aan ka qaadanay ana ku qaadanay halkan sidoo kale qofku ka qaadan karayay laakiin fursadda trade area wuxuu ahaa trade area successful noqday walibana bibiskii aan rabnay ka badanayna siiyey buu ahaa let me check inta badan ka qabanay targetku inuu ahaa 206 bib buu ahaa targetkiina almost imisa la gaaray marka boqol iyo sideetan iyo lix bal soo hadla insha allah fursaddan maan qaadan haddaan qaatay horaa ma kala socon lahaa تريدي هو مهم أساساً وكم يمسن بقولك يا بقول أساساً وكم يمسن والله وبالله والله قفل بق الرباين وكم كوريو أما هو حلو يقانو بيبس في عن حلو أما دذلك جودي سلا إيمانية هكو حسابته ما تريديها not signal skinny تريديها كليا حسابته
3 98% way shaqaysaa 3 98% waxaan meeshan ku sibixinayna waa way shaqeeyaan meeshaas ay yimaadaan chatku waa idiin furan yahay haddii la maqlayo waa wanay soo qoraa fursaddan haddaba yaa ila qaatay fursaddan maanta aan qaadanaynay oo qolka signalkan kusoo dirayay qolkan yaa qaatay okay okay dhib ma laha haddaba maanta lacagta niyanka waa fasax bay ku jirtaa oo waa holiday still targetkeena halkaas u ahaa waan ku dhigana still targetkeena halkaas u ahaa marka kan ahaan waan bixinay signal baa u bixinay kanna insha allah tomorrow signal baa u bixin doonaa ilaa intanna still soo gaaro gaabkan waa rajaynaynaa weli lacagtan self kala ku haray oo ilaa 160 ah baa ku haray waxaan ka faa'iideysan doonaa iyadana haddii ilaahay idmo tomorrowna ama iyadoo stop ah iyadoo stop ah haddii ilaahay idmo ayay siin doonaa in soo diri doonaa haddaa rabtaan dhigta stop loss waxkooda haddaa rabtaan dhigta right now sell stop ilaa 16100 sell stop 16100 laakiin iyadoo signal caadi ah ayaan qolkeeda kusoo diri doonaa ilaa halkaasna waa inuu gaaraysaa trade-kan wuxuu ahaa trade 100% aad u fiican waana sii soconayaa saan isleeyahay sababta waxaa weeye halkan train cusub baa ka bilowday waxayna ahayd sababtaan ku qaadanay trade-kaas maanta dhaweyd intaan buul baa gaanay dhammaatay halkanna ay daadashadii mataqaanaa trainka cusub ay ka bilaabayso sidoo kale suuqan lacagtan GJ waxay ahayd lacag momentumkeeda ama awooddeeda in badan la soo waday oo in badan baa saad arkaysaanba bay lagu soo waday oo lagu soo cadaadinayay marka timekan waa timekii waxaa weeye at least sanbuug baa dhigtan la leeyahay waxaa arkaysan in intan oo bay ah ay ilaa 2020 ku jirtay socotay waxay isku dayday inay jebiso gidaarkan halkan la siman official monthlyga tagno si aan u aragno monthlyga still Augusto ma cadda inay la jebi laakiin bishii tusaalahaan oo kale haddii aan eegno bishii haddaanu eegno bishii July yani awooddan meelna waa loo wadi kari waayo marka ilaa iyo halkan lagu soo noqdo maahane si fudud inta lagu dhaafo in halkan lagu gaaro waa wax ay aad u adag tahay marka waa sababtaan leeyahay ilaa 155
inta sanadkan ama bilahan waa arki doonaa. arki doonaa targetkeena ugu dambeeya 157 ka waa halkan weeyaan. dailiga laftigiisa waxaa arkaysaan in still suuqani uu ahaa mid yacni siman oo range ah ilaa markii la eego inuu treenkan hadda cusub bilaabanayo aan ka ahayn. intanba waxay ahayd in isku day kor loo wado la soo celinay, kor baa loo waday waa la soo celinay, kor baa loo wado la soo celinay, kor baa loo wado la soo celinay, kadibna go'aanku wuxuu noqday in levelkan hoose uu break ku dhaco. okay markaan eegno Fibonacci-ga inta uu gaarayo. Fibonacci-ga waxa uu ina leeyahay TB-ga koowaad waa kana, waa halkana, kan waa kan labaad, kanna waa kan saddexaad. which mentally ahaanna iyo aqoon ahaanna waa possible way. possible. marka annaga insha Allah Britain waan ka faa'iideysanaynaa isbuucyada dambana waan arki doonaa. Trading is always wax yani ma aha marka lagu oranayo waxaan waa buy ama waxaan waa sell marka lagu oranayo GG kama dhigana yani wixii sidii biyihii buu soconayaan oo sidaasay ku soconayaan. waxaa laga yaabaa inay mataqaanaa badankiina ay saa aaminsantihiin laakiin saa ma aha. trainingku laqabyu sameeyaa, isaga ayaa laqabya sameeya. hadduu trainingku ahaan lahaa mid iska socda oo selka hadda aan sheegayn u socda cid walbo dee way iskala mataqaanaa maalin mid iska soo gashay iska faa'iidi lahayd. laakiin laqabyu ku socdaa oo hadda tusaale ahaan oo kale halkan baa la soo jebiyey xoogaa baybuu dadka siiyey, waa la soo jebinaya haddana xoogaa baybuu laga yaabaa inuu meelahan oo kale dadka siiyo ama halkan ba gaaro inuu haddana si toos u soo jebiyo ama uu soo jebine waxa loo yaqaano uu mataqaanaa halkan break ku sameeyo, kadibna uu xoogaa mataqaanaa halkan uu dad xoogaa bay ku siiyo, kadib uu soo dhaco, kadib uu dadka halkan bay mar labaad ku soo celiyo siiyo, kadib uu sii socdo. Trading is always la kabiyo yani. hadda laakiin waxaan ka hadlaynaa waxaa weeye accuracy percentage probability ama bibiska ugu badan ee ku jira baa waxay yihiin salbi yihiin. tusaalahan oo kale ninka halkan maanta ka soo qaatay tradekan meeshan maalintan ku bixinaynay qofkii ka soo qaatay tradekan dee wuu kana sii fiican yahay qofka meeshan ka qaadanaya. maxaa yeele asagoo wuxuu rajeynaya ilaa halkan ilaa 155 ka sheegaynaba inuu la socdo already stop losskiisana meelahan u kansado intaanu faa'iidaan ugu jiraba ama 100 biiba faa'iidaan ugu jiro. marka bibiska ku jira ee selka baa ka badan ka bayga, laakiin mar walba bay laga helayaa. saan oo fahantaan weeyaan. marka hadda intan keliya ee bayga uu dadka siinayo fiiri waa 26 bib soo ka soo qabo libana waa 38 bib. laga yaabaa inuu maanta baygaas uu kuna noqonayo maadaama lacagta yankana holidays ka tahay. marka haddii aad tomorrow London session and Asian session ka hor u timaadaan bartaas waa meesha seentaas ama wiilkaas ka dambeeya meesha ka dambeeya intay noqonaysaan eegno taqriiban 161,077 waa sell stop kiina. haddii aad
rabtaa inaad iska sugtaana markii la soo jebiyo waxaa laga yaabaa meesha intoos walba loo yimaado retasti la sameeyo kadib uu soo dhaco kadib uu soo dhaco marka halkanna waa ku sugi kartaan halkanna waa dhigan kartaan sel stopkiina intaba idinka idin banaan tahay anigana hadduu ilaa idmo haddii aan chance helo marka fursad aan helo toos ayaan u soo dhigi doonaa hadduu ilaa idmo okay lacagtii dahabka ahayd intrigeeni ayaa dib loogu noqday soomaaltan 63 biib baana siisay intrigeeni ayaa dib ugu noqday khalaas waa caadi waa caadiyo waana sugaynaa trading is always patience inaan samayno oo u dulqaadano weeyaan marka intaas ayaan maanta kusoo gabagabeynayaa haddii wax su-aala inaan qabin soo xiriir karnaa insha allah اوكي ادي ادي ما ستين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته